So ما live screen ما لهنو adduun hina إيه فرطي screen recording kadibna عاد في رياك كدب دون معايا والله مركز بلاوا وحناقة ولا سحنا جنا ba xanaaqi ilbaa ka fahantay waa ka digi laada markaana waxay tahay maca wallahi male wallahi bilaa iskariin male hadhow messengerka hadhow iskariin lahay messengerka hadhow kaas qabanaya caadi iska dhig waxaa dib kugu soo celiyay dadka hadhow inaysa oran way isku xanaaqeen kuudhe halkan waxaa aga jeedaa mute iyo block iyo comment mediator wallahi wax kale agama jeedo male iskariin male takala doqonnimadaada dadka live daawanayo dhan ma inaad taleefankayga galerigiisa u sheergelisid aad rabtaa ها محا anoo feera qaaban baa igu jiri karaa garanaysa anoo password iska qaadi karaa garanaysa taleefanka private galeriga waxaas live waxay dhex noqsayaan adi maxay ka galaan naagta bis baa rabeen gabadha sawirada hadda u baahda anaa kusoo diraya adi maxaa ta kale aniga fiiri sawir nin baa saaratay maku qabsan waxa maku dhihin live kama degin how ku ixtiraamaya way ixtiraamti ixtiraamka soo ku ogaa ma laga bedelo adigu waxaan la wada bedbedelaya waa baxay wax la bedeli ma jiraa wax kasta oo sidoo war sidaad arkaysaan muuqaalkan Sumay Qurax cod sir ah laga duubay recording kor ah ayaa looga sameeyay ayadoonan is ogeyn oonan fahmaynin ayaa qofkan kor recording ku sameeyay markii hore sida arkayseen way ka shakinaysa oo waxay dhaysay miyaa i record garaynaysaa laakiin wiilka been ayuu u sheegay kuma record garaynayay ee caadi u hadal waxay ku tusinaysaa dhibaatada caanka qofka markuu yahay muuqaalkana intaan hore u galin fadlan waxaan ka codsanayaa subscribe sida ogtihiin Sumay Qurax maalimahan dambe bulshada ayay qabsatay mar la xiro iyo mar waxay noqotay codayn sir ah laga faafiyo sida arkayseen waxay u egtahay inay ka masiirsaneed ninka ee la socotay ee la sheekaysanayso gabar uu la hadlayo mise gabar ay ku maqashay dumarka caan iyo caannimo ayagoo caan ahayn hadday masiiraan way is ilowaan Sumay Qurax maanta way ogtahay inay caan tahay codkan inay laga duubi karo balse way sii wade waxay ka guwanaysaa gabadhan uu la shukaansanayo hadda khaladkiyaa leh ma Sumay Quraxa mise wiilkii duway midda kaleeto intaanan videogan horgelin aanan ka hadlin waxaan rabay inaan ka hadlo qofka markaad ka arkaysa inaan ku jeclayn inaan ku ixtiraamaynin uunan ku qadarinaynin waqtigaada ku siinaynin hadalka aad ku dhahda qaadanaynin maxaad ka wacee maxaa waqti iskaga dhuminee maxaa oo la hadlay hadda Sumay Qurax ayadoo saan quruxsan oo gabar Soomaaliyeed intaas u dhiman u oynaano u qaylinayaan ayay nin waxay ku baryaysaa gabadhan sawirkeeda ii soo dir maxay ku falaysaa midda kale wuxuu ku dhahayaa ninka profileka aad soo saaratay ka qadmaan ku dhahay yani waxay ku tusinaysaa first lawadan in uu jirinbo trust jacaylkoodii waxaa ka dhintay aaminitaan ma leh ku tusinaysaa in aaminitaan lahayn gabar ayaa kula hadlaysa waxay ku leedahay gabadhan kuu maqlay nambarkeeda iyo sawirkeeda keen haddaad si run u jeceshahay waad keenaysaa laakiin kama hadlaysid sawiraan aan soo saarin jiray waxyaale aan samayn jiray inaad ka hadasho way laga fiican yahay qofka hadduu ku dhaho gabadhaa jeceshahay hadday ku dhahdo waxan iyo waxan iska dhaf waanad inaad iska dhaftaa midda kaleeto gabdhaheena Soomaaliyeed oo caanka ah way fiican tahay inay is aruuriyaan qof walba oo xiriir la sameeya ma jecla qof walba oo xiriir sameeya ma aho 100% inuu yahay qof la aamini karo hadda waa aragteen Sumay Qurax way la hadlaysay codka duway meeqa mara aragteen gabdha caan ah oo laga duway codad oo muuqaaladooda xitaa la soo saarayo hadda
caadi oo la hadlaysaa qofay jeceshahay codka saa ka dareemayso waxaa qof ay sayid u jeceshahay qofay isla hadlayaan ayna ka masiirtay gabar uu la hadlayo asaga muxuu sameeyey cod ayuu duwayaa sir codeed yacni wuxuu sameynayaa wuxuu rabaa inuu bahdilo wuxuu rabaa inuu dhulka la galo laakiin ayada ma fahmayso mar haddaa caan tahay ma fiicno inaad nimanka daba ordo aad dhahdo qofka waxaasa ka masiira waxaasa ka masiira qiimahaada waa inuu kor ahaadaa dad badan ayaa kugu dayanaya gabdho badan ayaa ku fiirsanaya haddaa nin isku jibiso gabdhaha kalena oo ku fiirsanayaan maxay sameynayaan hadda waa arkaysaa dadka caanka ah mar codoo laga duwaa mar dad ayaa ka daba jira hataa ha noqdaan qofkay jecel yihiin ay isku aamineen nolosha dhan isku dhiibeen hadda fiiri waa laba qof oo isla hadlayeen anaga say nagu soo gaartay anaga oo ka fognay say nagu soo gaartay way fiican tahay markii lagu leeyahay haddaa caan tahay way fiican inaad is ilaaliso aa is dhowrto hadallaha qaar uu kaa bixin muuqaaladaada ayaa lagaa duubi karaa qof ayaa ku xasdi karaa ku sugaya maalin inay ku arkaan inaa hoos dhigto hadda wiilkan sida oo la hadlayso way ogtahay inuu qof la socdo uu qofka lala wado uu ayada qofka la garab wado waxay ahayd inay ka istaagto iyo gooni kaga istaagto qad sumay qurax cod ayuu ka duway laga yaabaa hadduu jaanis helo hadday isjeclaan lahaayeen inuu hataa muuqaalo xum ka duwo nimanka noocan ma fiicin inaad noloshooda u dhiibato aad jacayl u dhiibato aad kula fikirto mustaqbal ragga noocan waa ragga ku dhigayaan meel caday waxay kaaga tegayaan meel caday maalin ayay kaa dhaqaaqayaan maalin caday ayay kaa dhaqaaqayaan yacni muuqaal sir ayuu duwayaa gabadha si oo la hadlayso codkeedii ayuu hayaa wuuna jeclaystay inuu la sheergareeyo qof walba subxaan allah waa la yaab nin rag ah gabar codkeeda duwaayo oo haddana muuqaalo intaas qof la sheegaraynayo waa laga fiican yahay ninka ragga ah waa inuu gabadha ilaaliyaa uu gabadha asturaa ma aho inuu gabadha ceebadeeda uu bannaanka soo dhigo mida kale sumey qurax iyo gabdhaha caanka ah waxaa la rabaa ay inay aruuriyaan qof walba way iskala hadlayaan hadda fiiri codkan lawadooda ayuu ka dhexeeyey anaganuna soo gaaray haddaa soomaali caan u tahay xanuun badan ayaa qaadaysaa hadda khaladka yaa leh ma sumey quruxa mise wiilkan kale ayadu way og tahay inay caan tahay waxaa la rabay inay is ilaaliso wiilkanna waxaa la rabay gabadhan sirteeda inuu bannaankan usoo saarin